ilaa 7 gobol baan filayaa inuu ka soo noqday macallin iyo maamule iyo gudoomiye waxbarasho intaba wasaaradana wuxuu ka gaaray ilaa macallin buu ka bilaabay ilaa agaasime ilaa iyo wasiirka waxbarashada sidoo kale wuxuu soo noqday wasiirka qorsheynta qaranka wuxuu dhashay 1937 garow uu ku dhashay ayl buuna ka bilaabay macallinnimadiisa sidaas daraaddeed anigu intaan ka aqaanaa inkastoo ay kooban tahay laakiin waxaa la isla qarsay anuu ahaa nin caadil ah oo wasaaradday xukumay uu ahaa nin ku mutaystay inuu madax ka noqdo oo wasiir ku gaaro aqoontiisa kartidiisa waxaan kaloo anigu markhaati ka inuu ahaa nin aqoon-yahana aadna hullow u ah ummadoo dhanna u sugan tahay waxaan rabaa marka koowaad inaan anoo ku hadlaya guud ahaan magaca gobolka mudug inaan u tacsiyeeyo eheladii uu ka dhintay marxuumku iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba waayo wuxuu ahaa shakhsi ummadda Soomaaliyeed oo dhan wuxuu yaalay gobol iyo qayb iyo degmo nin ka weyn buu ahaa nin qaran buu ahaa wasiirkii hore oo waxbarashada Soomaaliya uu ahaa xilligii barisamaadkii taariikh nololeedkiisa waan ka xumaynaa wax ka taabta ragga dambe sheegi doona laakiin markuu uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo dhan buu ugu yaalay sidaa daraaddeed Soomaaliya oo inaan la tacsiyeyno ilaahayna uu naxariisto kulligeen aan wada cafino guud ahaan waxay la tahay waa laga warqabaa waana laga sheekeeyey cimrigiisa inta badan wuxuu ku bixiyey danta caamka inuu ka shaqeeyo hadday tahay waxbarasho hadday tahay horumarin kale hadday tahay nabad iyo nabadayn dadka dhexdooda in la islaaxiyo iyo ummadda Soomaaliyeed si caam ah inuu ugu shaqeeyo waxaan isleeyahay qofku markuu dhinto waa laga murugoodaa laakiin haddana waxaa farxad ah oo aan ilaahay agtiisa ka rajaynaynaa in ay miisaanka xasanaadka u gasho inuu cimrigiisa inta badan ku tagsiiyo dan caam ah uusan dan gaara ka shaqayn ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u geliyo jannatul firdawsana ugu bishaareeyo munaasabadan oo kale ama janaasada oo kale waa ducada intaa waxaa soo raaci kara qofka danta caamka ka shaqeeyey qof kastoo muslima oo dhinta in loo duceeyo qofkii dan caama ka shaqeeyena in la maamuuso si cid kasta oo danta caamka ka shaqaynaysa ay ugu noqoto dhiirigelin qof kastaana waqtigiisa danta caamka qayb uu geliyo ajarna uu ka helayo waxaan rabaa inaan bahda waxbarashada guud ahaan magaceeda anoo ku hadlayo Soomaali oo dhan buu wax taray waxbarashadeeda ka soo shaqeeyay heer kastoo ay tahay laakiin maanta waxaan u malaynayaa shaqadii uu soo hayay aniga iyo agaasime cali faarax baa ka dambayna marka waxa nala gudboon waxay tahay maamuus gaara oo magaciisa ku suntan inaan iska kaashano sidii loo samayn lahaa intaasna waxaan rabnaa inaan halka ka caddayno annaga iyo BDRC-da wasaaradda waxbarashada iyo BDRC-da ka tashan doona maamuus gaara waynu magaciisa ku xusuusano oo ku suntan baynu samayn doonaa ilaahay meel dugsoon oo qabow oo macaan oo janno ana ilaahay ku martiqaado taa ilaahay baan uga baryayaa sabir iyo iimaan allah ka siiyo ehelada iyo caa'ilada uu ka tegey iyo dhammaanteen ehelkiisii iyo rixinkiisii baynu ahayne sabir iyo iimaan allah ka siiyo khaasatan waxaan leeyahay Soomaali waxaa la yidhi 70 sano ninka jira dadkii wax bartay cabdiraxmaan macallin buu ahaa ama wasiir buu ahaa dadka 70 ka jira weeye oo Soomaali ah Puntland markii la yiraahdana wuxuu inoo galay halkan waxaa ka akhriyay maxamed cali faarax waxaan anigu ka ducaynayaa anigu dadku abaalka gashaday baan ka mid ahaa shakhsiyan ilaahay waxaan uga baryaa ilaahay jannada inuu ka waraabsho ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay jannada inuu ka waraabsho ladiisiina sabir iyo iimaan allah ka siiyo taariikhdiisa rag badan oo waaweyn oo odayaal halkan jooga ka sheekeeyey laakiin ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u dul dhaafo oo annagana dadkeena munaasabadda ka soo qeey ilaahay uu lagu sugo dabdiisna uusan fidnayn bahda waxbarashada Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa meesha uu baneeyay in la buuxiyo iyo intii uu ka tegey ilaahayna dhammaanteen sabir iyo iimaan naga siiyo waa mahadsanti shirka waxa uu soo barbaariyey macallimiin fara badan shirka wuxuu misaal u noqday iyo waxay ku jirtaan dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed
shuuka wuxuu ahaa haliyey qaran isagoo aan elementariga dhammeynay dugsigii saddexaad galaaskii saddexaad 1 2 3 isagoo habu wuxuu noqday kaaliye macallin ilaa uu ka gaaray khibradda ugu sarreysa iyo wasiirkii waxbarashada soomaaliya guud ahaan aad iyo aad ayuuan runtii aan ugu kalsoonahay maantay inta saagoojiyeysa oo ugu badan inuu yihiin intii uu soo barbaariyey in ka badan dhallinyarada muxuu ahayey ka soo qayb gashay aaskiisa iyo janaasadiisa ayaa ka markhaanti ah aad iyo aad ayuu shuuke annaga waxa mini weyn loogu ahaa ma aha munaasabadda tan inaanu ka sheegno laakiin waxaa weeyaan xaruntii uu asaasay xaruntii uu hirgeliyey xaruntii uu meel sare maqaam sare uu gaarsiiyey ayaanu annaguna u ballan qaadnay in aanu sii wadno halkii noogu dhiwareejiyey aanu annaguna ka sii wadno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inanaa noqon kuwii dayaca shulka anigu waxaan bartay 1979 isagoo ah agaasimaha waxda qorsheynta wasaaradda waxbarashada aniguna agaasimaha horumarinta cilmibaaris waxaan ahaa horumarinta kalluumaysiga ee wasaaradda kalluumaysiga soomaaliya marka waxaan u haystay inuu yahay nin adag oo baalkiyo oo isla baalkiyo laakiin waxaan ogaaday markii dambeeto inuu yahay ninka ugu raxmadda badan ninka ugu sadaqada badan ninka ugu maxaan ku rahdaayey dagaalka badan dadka weliba danyarta ah iyo dadka laga tiro badan yahay xuquuqahooda iyo aadamdana aad iyo aad ugu dadaala ilaahay janno iyo raxmaan siiyo soomaali ah oo noloshiisa dhan u hibeeyey waxbarashada ubadka soomaaliyeed taas markhaati waxaa ka ah dadkiina hadda maanta halkan yimid iyo baraha bulshada iyo tviyada iyo meel walba oo magaciisa la hayo taasina kuma imaan bilaashe waxay ku timid dadaalkiisii iyo adkaysigiisii iyo haddaan ku daro weliba cadaaladdiisii uu wax ku maamuli jiray waxbarashada intaasay ku timid qof walba oo soomaali ah oo wasaaradda waxbarashada ka shaqayn jirayna waa ogyahay taas waxaa jira qisooyin badan oo dad intii la duudsiyey darajooyinkoodii uu soo celiyey waxaa kaloo uu caan ku ahaa nin geesi ah oo madaxda ka sarraysa u qiimeeya sida ay wax ugu qabanayaan waxa uu rabo iyo howlaha loo idmaday inuu fuliyo sidaas daraaddeed haddee ninkaas halyeygaaba ina ka tegay allaha u naxariisto annagoo dhan iyo qoyskana allaha naga samirsiiyo